رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله وتحانهني لما قعبحي وسارعوا حلقذني وحلقذي لبي طبناد هل كدقيدون وسؤال وعلس كجواب الديدون حلقذا قبقبذيذة إيقف والبقية دمير كيسة su-aashu waxay leedahay ma jeclaan lahayd jirkaaga in qaar laga jaro dibna uusan kuugu soo laabanin waxaan garanayaa caaqil walba muslim iska daaye inuu dhahayo maya dhagayso qowluhu tacaala ayaaman macduudaat walaalkayga muslimka ahow soonka laguu sheegaya waa ayaamo tirsan 29 maalmood ama 30 maalmood 10 maalmood ayaa maanta tagtay ama 11 maalmood maalintii 12aad baanba maraynaa maxaad u diyaarsatay maxaad u hormarsatay maalmihii la soo dhaafay maxaad ku bixisay ma ka faa'iideysatay waqtigaaga kitaabka quraanka ama kala furtay kitaabka quraanka ama ku tadabburtay salaada taraawiixda ma daa'imtay ilaahay xaajadaadii iyo danahaaga ma u sheegatay walaalkayga muslimka ah oo qalbigan kaala hadlayaa anigaa isla hadlaya oo wallaahi ah reerkaygaan la hadlayaa iyo caruurtayda qaraabadayda iyo ehelkayga saaxiibadayda iyo mashaaikhdayda inta itaqaaniya intaan i garanaynin iyo inta luqadayda garanaysa intaba damiirkaygaan kaala hadlayaa waadna i dareemaysaa 10 maalmood dhowr iyo 10 maalmood baa lagu sii socdaa jirkaagii qaybo ka mida ayaa tegay oo aan dib kuugu soo noqonaynin xasanulbasri wuxuu leeyahay raximahullah ya ibna aadam inamaa anta ayaamun kullamaa dahaba yowmun dahaba bacduk allahu akbar aadam cidii ka farcantay ay dhagayso ina aadamow dhagayso adugu waxaa tahay ood ka samaysan tahay ayaamo maalmo ayaad ka samaysan tahay haddii ay maalini tagto waxay ka dhigan tahay inuu jirkaagii qayb ka mida ay tagtay yaquulu sala allahu calayhi wasalam asagoo arrinkaana xusuusinhaya laa tasaalu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can 4 maalinta qiyaamo oo maalin aad iyo aad u adag oo laga sheekayn karin labada lugood meesha aad ku hayso midig iyo bidix ogama dhaqaaqi doontid ilaa 4 su'aalood lagu weydiiyo ma garanaysaa walaalkayga muslimka ahow ma garanaysaa walaashayda muslimadda ahay su'aalaha 4 laba ka mid ah waxaa ka mid ah cumrigaagii waxa aad ku bixisay cumrigaagii waxa aad u isticmaashay ma khayr baad u isticmaashay iyo taaco ma shar baad u isticmaashay oo shaytaan baad ka iibisay qodobka labaad dhalinyaronimadaadii iyo xooggaagii iyo fircoonidaadii ma shaytaan baad mar labaad ku bixisay mise taaco iyo cibaado ayaad ku bixisay su-aashaasi jawaabteedu damiirka qofka ayaan u dayn iyo qof walba aniga iska hadlaya haddaan xadiid kale ku daro oo arrinkaana xusuusinhaya nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay nicmataani maghbuunun fiihima kathiirun min annaas alsixatu walfaraag laba nicmo dadku intooda badan way ku kadsoomaan oo kama faa'iidaystaan ma garanaysaa walaalkayga muslimka ahow ma garanaysaa walaashayda muslimadda ahay labadaa nicmo waa caafimaadka ka koobaad waa caafimaadka aad oo alla aanan oga faa'iidaysanin subxaana waa caafimaadka
oo si dhab aanan uga faa'iidaysanin waa caafimaadka uu Alla siiyey subxaanahu wa tacaala oo sidii loogu talagalay aanan u isticmaalin. ka labaadna waa waqtiga, waana nicmo weyn. waqtigu muxuu yahay? idaacatu lwaqti ashaddu min almowt. laa ilaaha ila allah. waqtiga oo la dayaco geeri way ka daran tahay wallaahi maxaa dhacay? lianna waqtiga oo dayacdaay wuxuu kaa jarayaa allah can illaahi, buu kaa jarayaa qiyaamada, aakhiradaadii iyo jannadaadina waa kaa jarayaa. amaa mowdku sow ma aha, wuxuu kaa jarayaa oo keli adduunyadaadii, ehelkaagii iyo carruurtaadii iyo reerkaagii buu kaa jarayaa. labadaa koodee khasaaro badan? ma midka kaa jaray allah iyo jannada miyaa khasaaro badan, mise waxaa khasaaro badan midka adduunyada iyo ehelkaagii kaa jaray? ila dhegayso qisadan yaabka badan ee aadka u macaan ee dhex martay amiiruulmu'miniin cumar ibnu khataabin radiyallaahu canhu iyo mucaawiya ibnu khadiij. mucaawiya wuxuu ka soo socdaal tegay oo uu ka imaaday waddanka masar, caasimadda labaad ee iskandariya. waa marka la furtay oo ay muslimiinta gacanta u soo gashay. madiine ayuu soo gaadhay asagoo khabar iyo war farxad la wada. wuxuu madiine soo galay waqtiga la yidhahdo waqtulqayluula, waa waqtiga duhurka iyo casarka u dhaxeeya oo xoogaa indhaha la isku qabto. wuxuu u maleeyey amiiruulmu'miniin waqtigaa inuu indhaha isku qabtay. hase yeeshee waxaa loo keenay khabar ama war dhahaya amiiruulmu'miniin ma basixda waqtiga waa uu u yimidoo qisadii buu uga sheekeeyey iyo inuu ku fikiray amiiruulmu'miniin inuu jiifo, asagoo bishaaradiina u sheegay. cumar ibnu khataab dhegaysta wuxuu yidhi, warkani wuxuu ku socdaa aniga iyo idinkaba, cid kasta oo ku muraan marsoota. mashquul baan ahay, mas-uul baan ahay. dhegaysta wuxuu yidhi, lain nimtu nahaara, haddii aan maalintii seexdo, la udayicanna xaqa araciya, waxaan dayacayaa xaqii shacabkaygaan dayacayaa. walain nimtu alleyla la udayicanna xaqa allah, haddii aan habeenkii seexdana xaqi allah ayaan dayacayaa. fakayfa binnawmi bayna haadayn alxaqayn, sidey ku dhici kartaa in aan labadaa xaq ee waaweyn dhexdooda aan khuuriyo yaa mucaawiya? allahu akbar. ayuha alaxibatu fi llah, الوقت أغلى من الياقوت والذهب، ونحن نخسره في اللهو واللعب، وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب. وقت وحك غالي سيهي ياقوتك إيا ذهبك، ونحن نخسره في اللهو واللعب، annaguna waxaan ku bixinaynaa ku khasaarinaynaa ciyaar. wasawfa nus'alu canhu cinda khaaliqina, maalinta qiyaamo allaha khaaliqa agtiisa ayaana laga weydiin doonaa yowma alxisaabi bidaka almowqifi annashibi, maalintaa culayska badan. waxaan ku khatimi cabdullaahi binu mascuud wuxuu yidhi, weligay farta dhexda kama qaniinin oo kama shallaytoonin maalin ay qorraxdiisu dhacday oo cumrigaygu nusqaamay, khayr iyo camal badanna aana siyaadsanin. su-aashii jawaabteedii ma garateen? arrintaa su-aashaa jawaabteedii qof walba oo damiir leh asaga ayaa laga doonayaa. axibaa'i fillaahi uxibukum fillaah. intaanu kaga kulmayna xalaqatan xigta, astawdicukum allah. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.